ma qiyaasi kartaa qof lumiyay hantidiisa oo dhan ku dhawaad inuu waayo hantidiisa haddana noqday qofka ugu saameynta badan adduunka dad badan waxay u haystaan in Elon Musk uu ku helay wax walba uu haysto nasiib laakiin runta waa mid ka duwan taasi maanta waxaanu falanqeynaynaa safarkii xanuunka badanaa ee Elon Musk ugu soo baxay eber iyo qaladaadkii uu galay iyo sirtii ka dhigtay inuu dunida bedelo haddii aad dareemayso inaad nolosha ku fashilantay badan ila joog ilaa iyo dhamaadka Elon Musk kuma dhalanin guri dahab ah Elon Musk wuxuu ahaa wiil aad u aamusan oo buugta aad u jecel kaas oo la kulmi jiray caqabadayaal fara badan ma ogtahay in mar la geeyay isbitaal taasoo sababtay wiilal yaryar inay ka tuuraan jaranjaro asagoo 12 jir ah wuxuu sameeyay video game wuxuuna ku iibiyay $500 taasina waxay ahayd calaamadii ugu horeysay ee hal abuurkiisa markii uu u guuray Mareykanka Elon Musk ma uusan raadinin shaqo raaxo leh wuxuu bilaabay shirkaddii Zip2 isaga oo seexan jiray xafiiska uu ku shaqeeyo meeran jiray meelaha dadka ka dhaxaysa oo publicada ah markii uu iibiyay Zip2 iyo PayPal wuxuu helay malaayiin dollar qof kastana wuxuu filayay inuu nasan doono maadaama uu hantiyay malaayiin dollar laakiin Elon wuxuu sameeyay wax waali ah wuxuu lacagtii dhan ku qarash gareeyay SpaceX iyo Tesla sanadkii 2008 waxay ahayd sanadkii ugu midoobanka badnaa mise ugu dhibka badnaa Elon Musk saddexdii gandaal oo u horeeyay SpaceX way qarxeen shirkadda Tesla waxay qarka u istaagtay inay burburto Elon wuxuu taagnaa markaas meel uu ku badbaadin karo har shirkadood ama inuu labadaba waayo wuxuu bilaabay inuu geliyo hantidiisii ugu dambeysay isagoo aaminsan hadafka ka marin dhalin doono gandaalkii afraad wuxuu gaaray hawada sare taariikhduna waxay isku bedeshay mid la qoro sheekada Elon Musk nama barayso kaliya sida lacag loo sameeyo waxay nagu dhiirigelinaysaa inaysan guusha ahayn wada siman waxay u baahan tahay dadaal dulqaad iyo saacado shaqo oo joogteen ah iyo inaad dadka kale ka duwanaato Elon wuxuu yiri haddii ay wax muhiim ku yihiin isku day xitaa haddii ay fursadaha guusha ay yar yihiin adiguna saaxiib maxay tahay riyadaada aad ka baqayso inaad maanta bilowdo ma haysaa geesnimadii Elon oo kale hoos iyo qor ra'yigaaga haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada hana ka iloobin inaad subscribe noo dhahdo mahadsanid